agaasimaha waaxda duurjoogta ee wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Somaliland Cabdinaasir Xuseen Siciid ayaa kulan ballaaran la qaatay shaqaale weynaha wasaaradda deegaanka iyo horumarinta gobolka Saraar. Agaasimuhu waxa uu kormeer ku tagay degmada Caynaba Wadaamo Gooyo Og. Agaasimuhu waxa uu dadkaasi ku wacyigelinayay ilaalinta deegaanka iyo duurjoogta. Ugu horreynba halkaasi waxa ka hadlay suduwaha wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga gobolka Saraar Mubaarak Ismaaciil Cismaan. Waxaanu bulshada gobolka Saraar ku dhaqan ugu baaqay inay ilaaliyaan duurjoogta iyo deegaanka. kulanti wanaagsan dhammaan shaqaalaha wasaaradda deegaanka xafiiska gobolka Saraar iyo mas'uuliyiinta wafdiga inooga yimi runtii muhiim bay inoo tahay oo wasaarad ahaan iyo shaqaale ahaanba muhiim bay inoo tahay in uu leeyahay xaqqa laynagu leeyahay bay ka mid tahay inaynu garanayno shaqada aynu qabanayno sameynayna wad kala garanaysa ujeedada ugu weyn ee kulankan uu daaran yahayna waxa weeyaan inaynu kala garanno shaqadeenu waxay tahay waxa inaga mamnuuca iyo waxa laynagu adkaynayo marka koobaad sidii shaqaalaha loo tusi lahaa ee loo bari lahaa waajibaadka ka saaran ilaalinta duurjoogta la ka dhigo waajibaadkeena hore oo shaqadeenu ay u badnayd ilaalinta kaymaha iyo la dagaalanka xaalufka inaynu dhanka kalena kaga darno ilaalinta duurjoogta maadaama iyana waajibaadkeena ka mid tahay. ugu dambeyntii halkaasi waxa ka hadlay agaasimaha waaxda duurjoogta ee wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Somaliland. waxaanu bulshada ku dhaqan gobolka Saraar u diray fariintaasi oo ku aadan sidii loo ilaalin lahaa duurjoogta iyo deegaanka. safarkaygan wuxuu daaran yahay safaran gobolada ku mareynay gobolka Awdal baan ka soo bilownay gobolka Saaxil gobolka Togdheer iyo Saraar aan ku suganahay imka sidii ay duurjoogta u ilaalin lahaayeen iyo si waajibaadka shaqo gobolada ka dhacdayna ninbaa lagu yiriyado in eriyanayo markaas lagu yiraahdo maxaad u ilaalin weydo markaas uu dinaay dhuxulun baa leeyahay marka inaynu bal waajibaadkeena shaqo iyo sidii aynu duurjoogta u ilaalin lahayn iyadoo deegaankiinu ku sidkan yahay waajibaadkeena ay ka mid tahay dhammaan deegaanka khayraadka ku hoos muxuu ahaa jira hadday muxuu ahaa dhir la goynayo noqoto hadday noqonayso dhul la xiranayo hadday noqoto duurjoog la dhibaataynayo iyo sidii wacyiga bulshada aynu sare ugu qaadno. وعلي آدم درنا علي تاني ورركة تلفزيون كون كيبل مقالة عينبا.